waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay siyaarada Sheekh Cabdulqaadir Jaylaani oo dunida oo dhan maanta meelo badan lagu qabtay dabaaldega siyaarada munaasabada Sheekh Cabdulqaadir Jaylaani munaasabada xafladan oo si weyn loo soo agaasimay waxaa soo qaban qaabiyay culimada waaweyn ee dhinaca qaadiriyada oo ay garab socdaan mas'uuliyiinta ugu sarsareysa culimadaasi qaadiriyadu waxaana halkaasi lagaga warramay marxaladihii kala duwanaa iyo taariikhdii uu sheekhu lahaa iyadoo halkaasi lagu faahfaahiyay faa'iidada iyo qiimaha ay u leedahay bulshada iyo dunida kale ee islaamka siyaarada Sheekh Cabdulqaadir Jaylaani hadalladii halkaasi laga soo jeediyeyna waxaa ka mid ahaa waxaan ugu hambaliyeynayaa dhammaan ahlul qaadiriya meel kasta ay joogaan islaamka oo dhan waxaan ugu hambaliyeynayaa Sheekh Cabdulqaadir Sheekhul Qaadiriya kaliya ma ahayn Sheekhul Islaam buu ahaa اللهم صل على مركز الإسلام كده وحنا نقول بليين يا حفلة قيمها أي قدرين له إيش عبد القادر الجيلاني أين السجون نميت وعلى سنة كسنة كيسة إلهي نوجر سي النبضي بش يبروها كل عام وأنتم بخير وحنا كلمتي إذا كيف يسنة يا وهذا عنو قاعدة شيخ عبد القادر الجيلاني هي تاريخ يستوى لنا وقت حسين تونا موقف يربع تلمامي تونا موقفي اللهم صل على سيدنا والشيخ عبد القادر الجيلاني تجاه الجهاد اللهم صل على سيدنا محمد بل شيخ عبد القادر الجيلاني يا قدس يا جهادك محاك دحيي وموقفك كواد موقفك لبعض علماء الصوفية والشيخ عبد القادر الجيلاني وكم دياي جهادية دي أمة الإسلام يسوق قلال اللهم صل على سيدنا محمد قيل تبيك أحيان علماء الصوفية مركان ليه مركان علماء الصوفية ليه اللهم صل على سيدنا محمد يوم قنيان مركا كومر بل تشا عبد القادر الجيلاني علماء القرن الخامس هي سيدي أي سقوح النايين يسيدي أيقصوا بحيين مدرسدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رجها ليه سيدا صلاح الدين الأيوبي وكله رجع كسر بحي مدرسدي الشيخ عبد القادر الجيلاني كبيها عبي كبحوش قاعتي أيو كبدها مرة منتصف القرن الخامس الهجري مشوها الرباط وأقامة أحد الزهاتي محل النائم من الصحراء وحي كتابة تاريخ رئيسية كحصان inay ka bilaamaysay jihaad kasta oo cid soo dhisay raga ay ahaayeen mashaayikh dariiqooyin ka sameeyay meelo ka baxsan goobaha dadweynuhu ay ku kulmaan loola nisbadiisa iyo kuyadiisa sheekhi diinta nooleeyay waa maalintii inoo dhashay xusuusayuu naga mudan yahay marka isaga ayaynu u xaflad sameeynaa sheekha waxaanu ugu xaflad sameeynaa quraan akhris iyo ixtiraam iyo taariikhdiisii iyo kitaabadiisii inaynu ka sheekayno laba macno ayaana ku jira inaynu barro jiilka soo kacaya iyo haddii aan kaftamo waraqmu anful wahaabiyati aljafaafati inaynu sanboorin ku samayno duulka wahaabida loo yaqaano ee walaaladeena ee sida khaldal ka fahmay sheekha taas waa kaftan taas labadaas macna ayaynu u xusaynaa sheekha macnaha saddexaad waxa weeyaan waynu dalkeena iyo dadkeenaba ugu ducayno maadaama sheekhu ha go'aamiye diineed dhaqankiisii wacnaa inaynu cibra qaadasho aynu wax ka baranno Sheekh Cabdulqaadir Aljilaani siyadkiisii iyo taariikhdiisii horena waa laygu xusay imika waa laygu xusi doonaa wax qariiba ma aha waxaynu xusaynaa si aynu uga dayno sidii diinta u daadahayn jiray soo ummadda wadan jiray sheekhu ahaa suldaan daadihiya diinta iyo culumada sayid ayuu ahaa iyo tacliiminta saalixiinta waxa weeye xaqiiqa aan sheekhana imika aynu ka hadalhayno wuxuu ka mid yahay shacaa'ir islaam shacaa'irta islaamka in dadka nooleeyuu ka mid noqonaya xaqiiqada waayo rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam ومعلك إسلام كأردن دين الإسلام كهجامي رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى رسولك كنت المامع علماء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني أنت لم تقاعد أي العلماء ولدة الأنبياء
kuwii dhaxlay ambiyada ayay noqonayaan xaqiiqadu sida ay tahay warisatul ambiyaa oo ambiyada xaqii baa keeneen ilaahay baa ku soo dejiyey waxyigii samaawiga ahaana waxaa sii faafiyey rasuulkii iyo saxaabadii iyo khulafadii iyo taabiciintii taabici ilaa qiyaamuhu dhacayo saa darteed baa laynaga rabaa in dadka saalixiinta ah marka lasoo hadal qaado maxaba inay noo qabato xaqiiqahaan oo rasuulka aleh sala allahu calayh wasalam man caadaa lii waliya faqad aadantu bilxarbi bula ruuxii dhibabule awliyadeeda mid ka mid a waa awliyada ilaahay way badan yihiin waa inta ilaahay rumaysay dhammaan ee ilaahay casa wajal rasuulkiisuna rumaysay awliyada uu ka mid yahay sheekh cabdulqaadir oo kale cidda dhib ula qarsataa faqad aadantu bilxarbi ilaahay bay xarbaan ogeysiye yani dagaal baa noo dhexeeya ka dhiganta caalim diinta islaamka ah oo caarif rabbi yaqaana ayuu ahaa wuxuu ahaa sheekh cabdilqaadir jiilaani inta badan ee u badan wixii nebi maxamed ka dambeeyey diinta fidinteeda iyo baritaankeeda axadka ugu caansan buu ahaa waxaa culimmadu wax badan bay ku ammaantay kitaab sheekh cabdilqaadir jiilaani isaga sheekh cabdilqaadir jiilaani wax badan buu sifada diinta loo fidiyo iyo halka uu ka bilaabay iyo halka uu gaadhsiiyey uu ka sheekeeyey runtii culimmadii waaweyneyd ilaa maanta qarnigan aan joogno sheekh maxamed rabiic oo culimmada aynu aragnay ugu weynaa naa'ib almukhtaar buu ku magacaabay naa'ib almukhtaar sheekh isbax markuu ammaanayay sheekheena sheekh cabdiqaadir jilaani wuxuu idhaahday sheekhi yaa jilaani xasani abaan wauman xuseyni qadra shayidi madad yaa jilaani meel sheekhana madad yaa jilaani sheekh almadani sheekh cabdiqaadir jilaani waxyaabaha ilaahay dee sirta uu dhex geliya waxaa ka mid a wuxuu dhashay 470 hijriyada wuxuuna wafaaday sheekhu 560 hijriyada 19 jir buu ku dhintay marka awliyada ilaahay caarifiinta waxay odhan jireen inna baasullahi yabdalu rijaali jaa fi cishqin wa maata fi kamaal marka jadiyada xarfaan loo bedelo taariikhda sheekhu dhashay 470 hijriyada kelmadda cishq waa soo baxaysa marka wafaadkii sheekhu 19 jir uu ahaa xisaabta jadiyada lagu bedelaan waxaa soo baxaya kamaal markaa baasullahi yabdalu rijaali wuxuu yimaaday jacayl buu yimaaday wuxuuna adduunka kaga dhexloodu kaga tegey isagoo kamaal oo dhammaystiran sheekh cabdiqaadir jilaani islaamku wuxuu uga tegay dhaxal weyn wuxuu uga tegey 70 kitaab in ka badan 19 sano u jiray wuxuu uga tegey awlaadiisii oo isaga lamid oo mid walba diinta muxuu mid dariiqada kor u qaaday iyo diinta mooyaane mid muxuu u dhimay inaan waxba ku filnayn u jirin caadi ahaan diinta islaamka way qaadiriya inoo keentay haddii ay jirteen ulaa qaadiriya islaamnaynu ahaaneen ilaa kan bidcigaa masaajidka ka hadlaya haddii la sheekh cabdiqaadir jireen islaamaynu ahaaneen taa taariikhda ka markhaatiya bal hala sheego wadaadka wahaabiya ee hadda nicnic masaajidada ka soo leh iyo meelahan madaarista yar u furtay lacagta sacuudiga ku socoto carab 1900 waxa weeyaan 125 sano ka hor 3 sano ka hor Soomaa carab wahaabigii joogay geeska Afrika la keenay ma jiradeen sheekh cabdiqaadir al-Jaylaani marka laga sheekaynayo mawaadiicda looga sheekeeyo ama ka sheekayntiisu faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah kow in la iska rabo inay tahay al-iqtidaa'u bisiiratihi kudayasho lagu daydo dhaqankiisii waxaa looga sheekaynayaa waa ku adkaan lagu adkaado caqiidada islaamka sida uu sheekhu ugu adkaa waa barashada diinta oo sheekh cabdiqaadir al-Jaylaani siduu uga shaqeeyey diinta barashadeeda in sidii looga shaqeeyo oo loogu adkaado imaam cabdiqaadir al-Jaylaani halkuu ka taagnaa waqtiga cibaada wuu sii wadaayey وإعلام مشارك أمر بترك الهدايا وإياها الناس وعلى الجلال وهو مشارك الأولى يتبع الكوارث يتبع
الدنيا منك كلفهم إكتر أيها عالم شعار آل الجيلان أحمد الله يقول فيها ويقول من يستطيع وصف مناقبه يا أيها الصفات قفلات عالم الإمام رحمه الله قفلات إنه صفات السحر الشيخ عبد القادر الجيلاني أشهر وأقول أولاد يا أولاد الفتاة ومفرحا وهي تصبح على الصحابة رسولها يا بقول يا عبد القادر الجيلاني إلى وقت تاريخ إنه شيخ إني ويناشد عبد القادر الجيلاني علماء يا الله مستعان إنه بكتي يا وضع محصتي وحي هو أوجين يا وحي إن أوجين أنت علماء يا سفي عن إنه وفاء فاحصي مركزي أنا بكتر يا رهان إن شاء الله تعالى وحيواه مكشفين وحوي إن المناسبات نوعا وكراء علماء لغو مانوسيو شعار الإسلام كالجوه يمينيو إلى مكشفينه ونقيق نوانو إن شاء الله تعالى ريتا نتيرضان ونحيب علماء إنه إسا شقادة في عن جمعية القادرية يقول كلام إلى رمان كشقينا أكبر وبرتاقنا وحملنا ومهدسنتهين حلوة هاي القصارة ما دام أن دينتي محمدية هو رميني أمة محمد فقمانتي إلى نود عينا واحد اللي قساري هو واحد في نوغة ساري هاي وهي وحقرني بحل كساري إنك إياي تتبت التوكا يا الله ما قلت جو حقرني إسان بحل كساري العلماء عشرة طريق يا قاتلين يقولوا الحسن محمد هدير أيها السكة عوصي عملية وأنه قاتلين هنا يبقى ساري أنت كمل يصير الغلاميسا وهي العمل قادر كمل الرمضان هذه الأمور التي تستوي السجن ما لم يبقى أقول هذا الموضوع تاريخ عن العين مدعو يحدث عن من الرهب والمسيح ودون الرغبة عن عبيد قاتلة مدرسة التركيو عبد يركض عندي بالله عندي عودني ومعه فيه عند يوم معصره لو على طرابيه waxaana halkaasi lagu soo bandhigay qasiidooyinka nemi ammaanka iyo weliba qasiidooyinka lagu xusayo siyaarada sheekh cabdulqaadir jaylaani oo halkaasi culimmada qaadiriyadu ay jaanta isla heleen gebagabadiina halkaasi waxaa soo gebagabeeyey xildhibaan hore axmed yaasiin sheekh cali ayaanle oo isagu ka mid ah culimmada qaadiriyada isla markaana mar walba isagu dadka ku booriya xuska iyo siyaarooyinka sheekh cabdulqaadir jaylaani iyo siyaarooyinka kale ee culimmadii hore ee qaadiriyada culimaadudiinkii diinta islaamka loo kala fadhiisanayay la ictinaadayay cilmigooda iyo waracooda iyo caqiidadooda iyo sugnaanta cilmiga ay u yihiin la tilmaamay
hadday xagga tafsiirka tahay, hadday xagga fiqiga tahay, hadday xagga xadiidka tahay, hadday xagga taariikhda tahay, culimadii diinta islaamka tiirarka u ahayd baa ka warramay fadliga ilaahay siiye sheekh cabdulqaadir aljiilaani. intaasaa inoogu filan. على قدر إخلاصه يعني مخلص نمدا خالص نمدا شيخ عبد القادر الجيلاني وخالص لله وآها إلهي الدين كيسا أيها وحا علامة وآها سيد إلهي وحنباري وعالم وقاسي مجعيسي هي طريقة ديسي الدوية دمال أتكتو hadday shanta qaaradood Yurub tahay, hadday North America tahay, hadday Africa tahay, hadday Asia tahay, meel aad tagto oo aan magacayo dariiqada Sheekh Cabdulqaadir Jilaani ugu tagaynini ma jiro. Cumar Aw Cali iyo Cabdiweli Bulsha TV Hargeysa.